بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين. waxaan rabaa insha Allah inaan qaybtan waa qaybtii lixaad oo barnaamijka aan kaga hadlaynay GMO ga la yiraahdo nidaam beereedka la bedelay oo waayadan dambe nidaamka cusub oo beeraha la sameeyay iyo cuntada chemicalka ee warshadaha lagu soo sameeyay dhibaatada ay keeni karaan qofka bini'aadamka. barnaamijka noocaas ayaa maanta sii wadayna insha Allah. markii haduu qaybtii tan ka horeysa qaybta shanaad waxaan bilaabnay in xanuunada ka hadalno. xanuunada waliba kuwii hore jiri jiray oo sii batay iyo kuwa casri ah oo ay keentay nidaam beereedka cusub iyo cuntada warshadaha. labadaas ayaa maanta xoogga saaraynay barnaamijkan. marka insha Allah ilaahay nagu anfaco, ilaahay nagu ajirsiiyo. marka xalay qaybtii aan duubay waxay noo maraysay kansarka. marka kansarka waxyaabo badan aan ka hadalnay. kansarka ku saabsan waana sheekada aan mar walba jeclahay inaan soo celceliyo inta dadka aan jeclahay inaan ka dhagacsiiyo si aan dadka uga dhagacsiiyo. waxaan jeclahay inaan ka mar walba hadlo. marka waa mowduuc weyn oo hadda mushkiladda ugu weyn oo dadka maanta haysata adduunka oo dhan khaasatan Soomaalida waa kansarka oo noocyo badan leh. marka xalay aan qaybtii hore kaga dhahnay marka maanta wax weyn kuma zaa'idinayo laakiin xalay laba tasxiixin ayaan rabaa qaybta tan ka horeysa markaan duubayay laba wax yar oo tasxiixin aan rabo inaan sameeyo. mid waa waxa kansarka ku saabsan marka eri yani chemotherapy-ga ma aha daawo oo ma noqon karo daawo mar hadduu sun yahay. weli waa aaminsanahay laakiin waxaan rabaa inaan tasxiix ku sameeyo marka eri yani qofna ugama cabsanayo inaan maanta informationka soo gudbiyo. waxaan ka wadaa yani bini'aadamka ilaahay subxaanahu wa tacaala wax walba aan sameynayo waxaan ku qasbanahay inaan ilaahay uga cabsado. taas marka waxaan rabaa inaan xoogaa yani aan tasxiix ku sameeyo hadalkaas aan eri oo ah yani cidna ugama cabsanayo. micnaheeda waayadan dambe waxaa badatay ama soo bilaabatay in yani macruufkii aan isu sheegi karin, munkarkii aan la iska reebi karin oo dad badan ay maaragtay ay ka dhigeen wax maaragtay yani wax dhib jirta oo qof walba in uu yani wuxuu sameeyay inaan lagala hadli karin ama aan laga waanin karin haddii wax khalad yihiin. marka taasa marka waxaa imaatay qof alla qofkii yiraahdo nidaamka yani nidaamka noocaan xataa hadduu caadadii dadka ay la qabsadeen. مثلا هذا كانسر markii la bartay chemotherapy hore laga bartay. marka caadadii haday ku jirto dadka inay u maleynayaan in ay waxaan ay daawo tahay ma aha. marka caadadii hadii ay awalan caadada waa fiican tahay hadeen islaamka ka hor imaaneen diinta islaamka iyo hadii ay raxmad ku jirto labadaba. xataa hadii diinta ay ku jirin oo tacaamulaadka dadka ay tahay waxyaabo cusub haddii ay diinta ka hor imaanayeen iyo haddii raxmad ku jirto labadaba yani lama diidana. laakiin caado lala qabsaday oo la ogyahay inay dhib ka imaanayso waa in marka maalin la joojin karo. haddii in badan qafle ay jirto ama aan laga warqabin ama jahli uu jiray waa in maalin marka la joojiyo. marka waxyaabo badan oo hadda nala qabadsiiyey boqolkii sano la soo dhaafay oo nalooga dhigay wax inay yihiin maaragtay ii sheeg information khaladna laga siiyaa jirto oo u baahan in la tasxiixiyo oo la rabo in maaragtay gadaal loogu laabto la fiiriyo waxaas maaragtay waxa ay ka jiraan waxaas waxa ka jira yani. marka waxaan ka waday in dadka hadda dhahay chemotherapy-ga waa daruuri in qofka lagu duro ama lagu daaweeyo aniga aad baa uga soo horjeeda. saas darteed yani dadka ugama cabsanayo مثلا dadka ka soo horjeeda chemotherapy-da waa dad mar walba yani مثلا maadaama dawladihii ay waxaan maalgelinayaan ama dadkii barnaamijyadan waday ay xoog siinayaan يعني qofka xataa waxa laga yaabaa inuu maaragtay naftiisa xataa uu khatar uga cabsado. laakiin aniga barnaamijka waxa usoo gudbinayaa anoonan ka walwalsanayn in qof bini'aadan insha Allah tacaala ilaahay maaragtay uu iiga filan yahay inay dhib iiga imaan karto. wixii ilaahay qadar waa qadaran yahay. laakiin ina aniga aan ka hadlo barnaamijkan waxaan la yiraahdaa chemotherapy-ga
waxay noqonaysaa yani meel walbo istaagay cid walbo oo aan la hadlo oo aan kala hadlayo inay chemotherapy-da joojiyaan lianna waa killer agent waa wax dadka dilaya taasna waa wax lasoo hubsaday oo hadda maanta aan macluumaadkeeda loo hayo saas darteed marka ilaah wax walba uga cabsanaya laakiin ma aha bini aadamka xaggiisaan ka hadlayay taas waa tasxiixinta ugu horeyso tasxiixinta labaad oo barnaamijkan kii ka horreeyay aan rabo inaan ka soxo dhowr jeer kelmad baan si khalada ugu dhawaaqay oo ay ka duwan tahay sidaan ugu dhawaaqay kelmaddana waa markaan dhahay acid reflection ayaan dhahay waana asalkeeda acid reflex marka carabka iga qalday kelmadda marka acid reflection ma aha waa acid reflex waana acidka caloosha ka soo baxa ilaahay wuxuu ugu talagalay meel daboosha oo meeshaas maaragta uu kasoo bixi karin markay cuntada caloosha gasho marka laakiin haddii problem jiro caloosha mushkilo haddii jirto xanuun hadduu jiro daboolkaas waxaa la arkay xoogaa inuu sidii la rabay u shaqaynaynin oo markaa acidkii uu soo dhaafayo oo xagga soo galaayo doonta cuntada qaado esophaguska loo yaqaano taas marka acid reflex waaye instead of acid reflection waxaan dhahay marka taas iyadan xoogaa tasxiixin marka insha allah waxaan kasii wadanaynaa halkaas xanuunadii oo casriga ahaa way badan yihiin laakiin insha allah waxaan isku dayayaa inaan inta aan maaragtay soo gudbin karo inaan soo gudbiyo insha allah tacaala waxaa kaloo ka mid ayuu yidhi dabcan waxaan ka akrinayaa buuggii ninkii qoray Kevin Turo gas qofka haddii informationkiisa aad isticmaasho waa in maaragtay aad soo gudbiso yani in qofkaas wixiisa masalan haddii meelo research laga sameeyey iyo waxaas waxaa laga soo qaadan karaa laakiin haddaa qof buuggiisa wax ka hadlayso ama aad kasoo koobi garaynayso waa inaad yani xaqiisa siiso saas darteed aniga marka ninka magaciisa waan kusoo celinaya iyo buuggiisa waana nin sida ani aan wax u aaminsanahay ninka aniga 2 sano ka hor ayaan helay 3 sano ka hor buuggiisa helay laakiin ma ahayn yani barnaamijkeedii uu aad ugu horeeyay laakiin waxaan arkay waxa la wixii aan ka hadli lahaay oo dhan ayuu si nidaamsan ugu soo diyaariyay marka saas uga faa'iideysanaya marka ninka waxa la yiraahdaa Kevin Turo buuggiisana waxaa la dhahaa natural cures they don't want you to know about wuxuu ku jiraa internetka ku jiraa isagoo maaragtay PDF ah isagoo YouTube-ka buuggiisa isaga fasiraya ama ka hadlayana isaga ku jira marka saas darteed marka buuggaana isticmaalaya buuggana wuxuu ka hadlayaa xanuunada casriga oo dhan anaa casriga u bixiyay isaga casriga moo dhihin laakiin xanuunada ka yimaada ayuu yidhi yani warshadaynta noocaana ah iyo beeraha noocaana waxyaabaha ka yimaada nidaamka cusub oo cuntada adduunka dhibaatada ka timid ayuu marka hal liista usoo gelinaya iyagoo ah xanuuno marka wuxuu ku leeyahay sidaanay ku yimaadeen haddana saana waa lagu daaweyn karaa marka xanuun kastuu ka hadlo daawadiisii kuu sheegaya oo si dabiici ah lagu daaweeyo marka isaga waxyaaba badan uu aaminsan yahay oo aan ku raacsanahay laakiin waxa aanan daawadiis u isticmaalayn ama aan dadka ugu soo gudbinaynin dabcan waa nin Americana wuxuu ka hadlayaa dhulka North America waxyaabaha laga helo ayuu dadku u sheegayaa inay isticmaalaan marka waxa aniga ugu weyn aan raadinayno waxaa ka mid ah in wadankeena waxa yaalo in loo isticmaalo daawo ahaan cuntada ugu horeyso iyo wixii daawada ilaahay wadankeena laga siiyay inay nagu filnaadaan taas waaye barnaamijka waxyaabaha dhinac socda oo aan rabo inaan dadka ka dhaadhacsiiyo inuu wadankeena yahay wadan daawo dadkii horena ay yaqaaneen oo daawada wadankeena ka soo baxday inaan meelo badan laga helin dadka ay ka warqabaan yani taariikhda Soomaaliya dadka ka warqaba ay og yihiin marka isaga waxyaabaha xalalka uu soo qaadanaya aniga insha Allah qaybta ugu dambaysan ka dhigaya anoo rabo inaan ku soo yani ku xiro masalan qof Soomaaliya xanuunsaday waxa ninkan hadduu xal keeno ama qof kale xalkiisa oo dibadda laga helo waxyaabaha aadka isaga ilaalinaya waxa waaye in dibadda baahi loo qabo oo baahi dibadda wax laga doonto qofkii xanuunsan oo dhaho wadan hebel laga helaa lama keeni karo ama waqtigii ama wixii oo dhan xataa mushkilad ay ka timaado alaabti keenideeda marka insha Allah tacaala ilaahay wax badan uu nasiiyay wax badan oo adduunka dhan uu ka faa'iideysan karo
oo anaga Soomaali aan leenahay oo aan aaminsanahay ama ha noqoto cunto ama ha noqoto daawo ama ha noqoto natural resource oo dhan waxyaabaha dabiiciga oo dadka Ilaahay uu ku manaystay Soomaaliya aad bay qani ugu tahay waxyaabo badan saas aan waxaan dareemayaa inaan daawo dibadda uga baahnaanayn insha Allah halkeena waxaan ka dhigaynaa wax wadanka yaala si uu qofka isaga iyadoo u fudud inuu heli karo yani saas darteed insha Allah marka xanuunka uu hadda ka haday oo ku xiga kansarka wuxuu ahaa wax la yiraahdo chronic fatigue syndrome يعني مثلا يعلم markii يعني Englishka marka ay rabaan ina la helo cudur cusub magac in loo sameeyo hadii la rabo marka qaarkood waxay ku daraan syndrome يعني waa xaalad moogta يعني chronic fatigue syndrome ma aha xanuun laakiin waa xaalad يعني waa xaalad ku timaado qofka مثلا وقفك دال بدن دمانين يعني سنوات wuxuu dareemayaa daal aad u badan oo maaragtay meel ku imaado garanay isagoo xataa waxyaabo badan sameeyay marka isaga wuxuu ku leeyahay daalkaas badan oo qofka mar walba dareemayo waxa uu maaragtay fiican wuxuu ka yimaadaa yani candida yani مثلا waxyaabaha jirkeena soo gala toxinka iyo waxaas oo dhan waxay keenaan wax la yiraahdo مثلا waxyaabaha hadda kansarka uu ka bilaawday meelaha kansarka uu ka bilaawday waa bacteria iyo fungal iyo waxyaabo isu tagay oo inflammation noqdo hadana infection isu bedelay yani oo selka xataa maaragtay uu fasaaday marka isaga waxyaabahaas maaragtay uu ku leeyahay oo jirka soo galay ayaa keenaya waxaana loo baahan yahay jirka marka in la nadiifiyo ninkan aad u dhinacaas uga hadlaa jirka in la nadiifiyo laakiin waxa meelaha uu ka yimaado virus uu ka yimaada candida wax la dhaho oo waxyaabaha xanuunka keena ah xanuunada soo jiido jirka markuu maaragtay heerkaas gaaro parasites yani markuu qofka ku jiro calooshiisa bahalo ay ku jiraan saas oo kale heavy metal toxicity يعني wuxuu leeyahay heavy metal toxin kan يعني waa waxa aan ka soo hadalnay يعني chemical iyo wasakh iyo germs iyo waxyaabo isu tagtay laakiin isaga يعني marwal wuxuu aad ugu soo celceliyaa laana jirka mar hadduu xanuunsan yahay calaamad ugu horeyso waxa waaye xanuunka uu ka yimid waa toxin kan marka wuxuu ku leeyahay heavy metal toxicity ayaa ku jiro qofka jirkiisa dabcan waxyaabo badan oo maaragtay bira ka imaan karo مثلا biyaha aan cabayno waxyaabaha chemicalka يعني حتى dad waxaa jirto goosaha wax loo galgaliyo birahaas markii ay jirka galaan oo ay ku daxleystaan waa waxyaabaha iyadan xanuunka keeni kara marka wuxuu ku leeyahay chronic fatigue waxa keeni kara oo kale inuu qofka thyroid active hypoactive thyroid markuu thyroidkii qofkii uu يعني sameeyeen hormoonki wax ku filan uu soo saareenin saa iyadana maaragtay waa imaan kartaa allergies ka imaan kartaa uu leeyahay laakiin waxaan ku dari lahaa waxyaabaha uu ka imaado dabcan waxa waaye مثلا daalkan badan waxa uu ka imaanayo waa nafaqo darrada يعني nafaqo darrada hadii uu qofka helin jirkiisa مثلا qofku wuxuu rabaa maanta oo dhan inuu wax sameeyo ama shaqo qabto ama ha cuslaato ama ha fududaato maanta dhan qofka inuu kaco oo shaqeeyo loo baahan yahay marka hadii ka waran gaariga markuu socdo wuxuu u baahan yahay baanziin hadduu ka dhamaado istaagay qofkana sidoo kale yani wuxuu u baahan yahay baanziin uu ku socdo مثلا hadduu maanta dhan cunayo cunto aan nafaqo lahayn jirku wuxuu ku leeyahay yani wili ma helin wixii aan ku shaqeyn lahaa oo ilaahay baa program gareeyay ilaahay wuxuu ku program gareeyay jirka wixii dabiiciga uu u sameeyay inuu ka faa'iideysto haddaba wixiina jirki ma soo gelin marka waxa imaanayso jirka murqihii lafihii xataa maskaxdii ma shaqeyn karaan sidii la rabay daal badan imaanay
marka dabcan waxyaabaha aan soo gelin doono hadhow xalalkay ka mid tahay haddaan waxaan ka cabsanaya inaan hilmaamo waxyaabaha loo qaadan karo waxaa ka mid markuu qofka cuntadiisa oo dhan bedelo oo cunto dabiici ah ka dhigo oo detox programkan uu qaato wixii markaa daawooyin dabiicina uu qaato hadduu weli dareemayo daalkan oo kale waxyaabo aad u caawin karaa jira oo waddankeena laga helo dabcan isaga hadda halkan wuxuu kusoo qoray bahal aad aan u jeclahay laakiin waddankeena lagama helo oo qofka energy badan siinayso laakiin waddankeena waxaa yaal wax la yidhaahdo moringa yacni awal waxaan maqlay inaa waddanka la keenay mirahaas lagu abuuray laakiin dad baa mar dambe waxay ii sheegeen waddankeena aslan wuu leeyahay moringa wuu ka baxaa marka moringada waxaa la ogaaday inay leedahay aad iyo aad iyo aad yacni vitamiino aad u sarreeya oo badan inay leeyihiin inay leedahay oo xagga khudaarta iyo fruitska iyo cuntada hilibka iyo caanaha laga helo ayaa caleentaas laga helaa ilaahay amarkiis yacni ilaahay fadligiisa ay ka mid tahay marka waa miracle yacni daawo aan dhihi karo oo ilaahay mucjiso maaragta nagu siiyey runtii waxyaabaha qaarkood laga badbadiyay aniga ma jecli waxaan jeclaa waxyaabaha qaar inaan tijaabiyo haddii aad looga badbadiyo moringada waxay ahayd waxyaabaha aniga aan tijaabiyey oo aan natiijadeeda aniga aan soo sheegi karo qof kaleba intaan kasoo guurinin bahashaan aniga waxaa la ii baray 5 sano ka hor markii nin herbalist ah saasoo kale uu ii baray bahashaan anigana dabcan mar walba waxaan isku dayaa wax alla wixii energy siin kara inaan helo sababtoo ah jirka wuxuu u baahan yahay dhinac walba in laga kabo maadaama caloosheeda cunto badan ay qaadi karin waxaan u baahanahay waxa ay siin karo cuntada beddelkeeda maadaama cunto badan aan cuni karin vitamiinada cuntada iga maqan aan ka heli lahaa waxaan jeclahay meelo kale inaan ka helo oo fudfudud marka hadda moringadan waxay ii noqotay meelahaas ilaahay xalka iiga dhigay 5 sano ka hor markaan bahashaan bartay waa bilaabay marka yacni waxaan arkay wax غير caadi ah yacni energy aan caadi ahayn aad iyo aad iyo aad yacni maasha allah aad baa uga helay bahasha energy-ga aan raadin jiray iyo wixii maaragta aan u baahnayo dhan waan ka helay alxamdulilah marka saas darteed yacni waxaan ku waaninayaa qof walba oo daal iyo waxaas dareemaya markuu cuntadiisa hagaajiyo jirkiisa nadiifiyo maaragta in uu bahashaan ku darsado cuntada aniga marka waxaan sameeyaa waxaan ku shiitaa ama canba iyo caanaan ku shiidaa ama kanada markaa joogay waxyaabo kale berries waxa dhan ku shiidi jiray yacni laakiin hadda Soomaaliya maadaama aan joogo canbihii lagu shiidi karaa babayga lagu shiidi karaa marka la shiidana ama fruitkii isku wada jiro ayaa xoogaa yar lagu darsadaa misal qaadada lagu cuno cuntada nuskeed hadduu qof ku darsado maalinkaas waa ku filan yahay energy-gaas insha allah marka milk shake laga dhigan karaa hadduu rabo qofka wuxuu ku darsan karaa suugada laakiin lama rabo dabka inay gasho hadduu rabo qofka malab uu ku darsan karaa sidii kaluu qofka rabo u qaadan karaa laakiin aad baa aniga bahashaas ooga helay oo haddii hadduu xalalka ah hilmaami lahaa haddaan rabaa inaan kusoo daro moringada aad bay important u tahay ilmaha in la siiyo lafahooda dhismaayo jirkooda dhismaayo maskaxdooda dhismayso yacni qof walbo maaragta u baahan inuu yacni inuu dhiso jirkiisa aad bay bahashaas ugu fiican tahay insha allah dabcan isaga waxyaaba u soo qaato waxaa ka mid ah bahalkan qofkii heli kara ginseng waddankeena lagama helo laakiin qofkii heli kara oo meelahaas jooga hadduu qof dhageysto waxyaabaha loo isticmaalo energy-ga ka mid tahay ginseng-ka ginseng waa GINSENG aad bay bahalkan uu u sareeyaa energy-giisa waxaa laga helaa dhinacaas Korea iyo China iyo ayaa laga helaa laakiin waa la keenaa meelahan hadda Soomaaliya wuu yaalaa bakaaraha qofka lahay waa helay marka ginseng-kan isagana waa waxyaabaha keeno inuu qofka maaragtay energy badan uu ka helo cuntada taas waxaa markaan kasoo gudubno xanuunka kale uu ka hadlay circulation problem masalan haddii uu qofka maaragtay qof caafimaad qaba yahay dhiiggiisa waxaa la rabaa inuu si xawli ah uu yacni wadnaha usoo saarayo
ومركا دقيقة دي وحلقة ربع انتاس أو جير إنه وداه كوسو نقد ليك هذا نسي سعود مستحيل جير كدان إنه كوريجا مركا circulation كنوع عاسة هدي وقفك مركا خلخل كجلو وطبعا جيركي حنوسن مركا كلها circulation problems كوحيابها كإيمان كران وحيابها كإيمان كران حكمنا blockage يعني مر هدي وارتريga xididka ugu weyn oo soo qaado wadnaha ka soo qaado dhiigga haddii uu xeer ay xirayso ama waxyaabo maaragtay toxins ay xirayaan ama waxyaabo maaragtay ii sheeg qofkii xataa يعني uu yahay qof asalkiisa يعني aan barnayn exercisekiisa مثلا hadduu qofka uu exercise badan xataa exercise ma aha kala ordo kaliya ma qofka shaqo badan hadduu qabanayo waa exercise ka mid ah yani qofku waxa rabaa socod iyo maaragtay dhiigga socodkiisa wuxuu ku xiran yahay qofka shaqadiisa ku xiran yahay qofka hadduu isticmaalaynin dhiigga maanta mid iska fadhiyo murqihi oo fadhigiisa aad u bato dabcan waxa imaanaya waxyaabaha circulation problems taan oo kala imaanaya marka waxa laga yaabaa xataa qofka oo biyaha uu cabayo in ay aad u yar yihiin oo xataa dhiigii maaragtay u cuslaado way imaan kartaa marka meelo badan ay ka imaan karaan mashaakiladan isaga wuxuu aad u soo qaadanaya anigan aaminsanahay waxa la yiraahdo trans fat waa yani markaan ka hadlaynay مثلا cuntooyinka Soomaaliya dhibta ku haya mid kamid waa saliid cadeeda trans fat waa saliid cadeeda maadaama uu soo sameeyay chemical warshado la soo mariyay waxay noqoto waxyaabaha wadnaha fariisto oo maaragtay arteriga xiri karo xididka weyn xiri karo waxaas oo dhan way ka imaan karaan xanuunka xigo wuxuu yiri cold hand and feet يعني tan waxay soo dhaxgalaysaa asaga uu soo hoos dhigay waxay la socotaa circulation problem hadduu qofka isku arko gacmihiisa qabow iyo lugihiisa qabow marabo ama xoogaa qabow uu ka dareemo qofka lugaha iyo gacmaha waa dabcan dhiigga socodkiisa yar marka waxa loo baahan yahay qofkaas waxyaabo inuu sameeyo oo dhiigga maaragtay socodsiiyo haddii waxyaabaha aan tacliiqan rabaa marka qaarkood inaan ka bixiyo haddii daruuri tahay tan oo kale hadda xalalka waxa laga yaabaa inaan maaragtay ku hilmaamo waxa loo baahan yahay hadduu qofka jirka circulationki dhiigga uu ku yar yahay socodkiisa dhiigga hadduu yar yahay in uu dabcan wixii kale cuntadii oo dhan inuu hagaajiyo jirka ka nadiifiyo toxinka iyo waxyaabihii aan loo baahnayn uu caagaga joojiyo inuu isticmaalo yani marka qofkaas uu nidaamkiisa caafimaadka uu si fiican 100% hagaago dabcan marka waxa imaanaysa horta circulationka inuu fiicnaado dhiigga socodkiisa inuu fiicnaado laakiin hadduu weli wixii dareemayo dadka hadda Soomaalida dad badan way cunaan basbaaska dad badanna ma jecla laakiin basbaaska waxa la arkay inuu yahay waxyaabaha dhiigga furfura marka qofka inuu cuntadiisa ka mid dhigo basbaaska inuu ku darsado si dhiigii uu u helo socodkiisa uu u fiicnaado marka taasna waa maaragtay xalalka geli karta ee aan soo hormariyay waxyaabaha kale uu ka hadlay waxa kamid ah hargabka soo noqonayo مثلا qof maanta hargab qabo isbuuc kadib hadana hargab uu ku soo noqonayo hadana isbuuc kadib laba isbuuc kadib bishii laba jeer saddex jeer laga yaabo hargab inuu ku dhaco hargabka soo noqonayo waa bacterial ama wuxuu ku leeyahay ama viral infection yani dabcan waxa ka cad qofka hargabka ku soo noqonayo waxa ka dareemi kartaa in uu maaragtay qofkan uu yahay qof jirkiisa nadiif ahayn marka amniinkiisina uu aad daciif u yahay laana hargabku waxyaabaha ugu yareey mar hadduu qofka hargab iska celin karin waxyaabihii ka waaweynaan waxa laga yaabaa inuu ku imaan karaan si fudud marka waa qofkan in uu bacterialka iyo waxaan jirkiisa ka buuxa inuu ka nadiifiyo oo maaragtay uu isticmaalo yani cuntada dabiiciga ah taas waxa ugu gudbaynaa constipationka waxa waaye caloosha taagan ama caloosha fadhida yani qofka inuu musqusha tagi karin xagga saxarada ay ku adag tahay oo yani qofkii uu heli karo maalin walba ay u suurtoobeen inuu musqusha tago yani waxyaabaha caafimaadka kaniga aan ku bartay waxa kamid ah aad waxa yani loogu dadaalaa
مثلا dhakhaatiirta oo caadiga ah waxay kuu sheegayaan maalinkii 3 jeer inuu qofka musqusha tago waana wax fiican waxaana loo baahan yahay saddexaas hadduu tagi karo qofka aad bay u fiican tahay dabcan yani waxayna ku xiran tahay cuntada qofka oo cunana way ku xiran tahay qasab maaha inuu qofka 3 jeer tago laakiin hadduu 2 jeer ama hal maalin qof hal waqti ama 2 waqti hadduu musqusha tagi karo maalinkii aad bay u fiican tahay special qofka markuu cuntadii يعني دور جاي عناي أنت بعدين علاش مكان كم وقته علاش صعد كذي إن أي حيرنين مكدو حيرمه وكونستيبيشن كان عدو حيرمه مركب ومشاكله وذن آيك إيمان كان حنون أردن وحكي ماذا علاش مكدو علاش تاجن وإسك ساري ويدو وحي ماركتي توكسين كي مثلا جيرك وز نظيفيا يعني جيرك ما هو واحد بني آدم كماركتي اللي جسوا جاي ما طلع إنه نظيفي إلهي يكون بروجرام جري إنه يعني سمينايو self maintenance waxa yiraahdo ama maxaa self cleaning isaga jirka isku filan kaliya anaga waxaan la rabaa inaan siino nafaqadii u baahnaa waxyaabaha khatarta ku keenaya ama xanuunada keeni karin inaan ka ilaalin in afkeena galaan inta kale jirka isaga isku filan ilaahay ayaa ku program garay marka caloosha waxa loo sameeyay nidaam ah maalin walba inay iska saarto wixii shalay soo galay saas marka caafimaad badan ku jiro marka ka waran qofkii ku dhahay isbuuc ma gal musqusha qofkii ku dhahay bil musqusha ma galin door bilood musqusha ma galin door sano saasoo kale ahaa yani waxa waaye waa xaalad aad uga naxay yani dadka saasoo kale markay ku dhacdo runtii waxa waaye qofka jirkiisa oo dhan wuxuu noqonayaa marka toxin aad waxa uga buuxsamaya sun badan laana jirkii wuxuu iska saari lahaa markay ka bixi waayaan dabcan gaaskan dadka ka hadlayaan iyo bad breath yani in afku wixii kasoo baxay neefta kasoo baxaysa ureyso iyo acid reflection kan iyo waxaan dhan waxa waaye calooshii ilaahay wuxuu ugu talagalay yani cuntadii inay socoto oo wixii jirka galaa markay galaan wixii kale inay ka baxaan hadday bixi waayaan marka maxaa dhacaya in ay yani calooshii ay soo celiso wax alla wixii ay ka saari lahayd jirka ay meelo kale maaragtay soo galaan sunteeda ama dhiigga qaar galaan ama beerka qaar fariistaan ama caloosha qaar fariistaan يعني وقياس كرتا قف مسخشيسي وطو يعني سنوات قف مسخشيسي وطو وارنتي واحد آد لوغا نحو لكن هدنا وحكسي نحلين بدن إنا دادك انتو دي بدن بأي علاوش تاعنتها وانا مر الله مركو قفك نوي مادوحة ugu hore aan weydiino waxa calooshaada ma socotaa ma taaganta calooshaada ma socotaa maalinkii waxa waaye markay ugu yartaa hal mar inuu qofku musqushto haddayna dhicaynin labadii maalin mar weli caloosha way taagan tahay waxaa loo baahan yahay in uu qofka helo hadda dadkeena waxa waaye khudaarta uma badna inay cunaan iyo fruitska maca in wadankeena uu yahay wadan khudaar iyo fruit laga helo yani waxaan nahay dad aan cunin cuntooyinkaas aad uguma badnayn marka waxaa loo baahan yahay qofka inay cuntadiisa isku dheelitiran tahay waxa uu cunaya proteinka inay ku jiraan vitaminska mineralska waxaa laga helaa yani fruitska iyo waxaa laga helaa iyo khudaarta laga helaa marka hadduu qofka cunaynin cuntooyinka noocaas ah dabcan calooshiina way istaagaysaa isla markaasna fitamiino badan ah jirkiisa ka maqan marka ilaahay wuxuu noo siiyay aslan fruitskan iyo khudaartan badan in aan jirkeena ku yani qawi ka dhigno yani aan jirkeena ku adkeeno oo caafimaad maaragtay si aan uga helno marka waxaa loo baahan yahay in la isku balance gareeyo haddaad tiraahdo qaarkood yani khudaar ma cuntaa waxaa haa wallahi saladka waa cunaa saladka ma aha waa khudaarta la sheegayo waa waxyaabihii kale oo dhan cuntada lagu darsanayo masalan hadda annaga waddankeena waxaa arkay inay toon ka bixin ma garanayo sababta uga bixi weydo iyadoo waddanka dhul beeraad uu yahay toonta waxyaabaha ugu fiican basashii yaanyadii kabsar caleenta waa waxyaabaha lagu yaqaano inay jirka sunta ka saarto waa waxyaabaha qof hadduu jirkiisa dareemayo inay sun badan ku jirto kabsar caleenta waxyaabaha ugu badan oo la isticmaalo bocoradii ka mid ah waxaa ka mid ah spinachka yani koostada bahasha loo dhaho yani waxyaabo badan haddii waddankeena waxa noo soo baxo dhan haddaan cunno oo maalinba wax ka cunno aad bay maaragtay caafimaadkeena u fiicnaan lahaa insha allah marka constipation waxyaabaha keeni karo caloosha inay taagan tahay waxaa waaye biyaha markuu qofka biyihiis aad u yar yihiin biyaha hadduu cabaynin qofka dabcan waxa waa caloosha way istaagaysaa marka laana waxay caloosha wax ku socodsiisa ma jiraan meesha marka waa in qofka biyo aad u cabo iyadana dabcan isaga waxyaabaha uu soo qaadanayo waxaa ka mid ah yani cuntooyinka aan ka hadlayno warshadaha ayaa keena caloosha fariisiya
waana iyo daawooyinka xataa maaragtay laga soo gato farmashiyaha. taas waxaa uga gudbaynaa qufac. dad badan oo waxaa aragnay qufac yani aan kala istaagaynin ka sheeganayo, yani aada maaragtay waa u badan yihiin dadkaas anaga waa aragnay. marka wuxuu ku leeyahay waxay ka imaan kartaa bacteria iyo viral infection. masalan infectionadan dadka ku dhaco oo maaragtay soo noqonayo ama la kala qaado maaragtay bacteria badan inay jirtaa laga yaabaa xagga dhuunta. aniga waxaan ku darsan lahaa masalan haddii ay caloosha socon weydo oo qofkan sanawaad uu ka sheeganaya inay caloosha taagan tahay, caloosha wixii mindhicirka ku jiray oo dhan caloosha ayay usoo noqonayaan, neefteedii, dhacaankii, wixii oo dhan. markaa waxaa imaanaysa xataa qofkii ilaa dhuunta inay waxay soo gaaraan oo qufac maaragtay. qufacaas waxaa keenaya wax uu diidan yahay jirka ayaa maaragtay meeshii taabtay. qufac micnihiisa waa taas, iyo inuu xasaasiyad marka ay jirto. marka jirkii dhan ayaa allergic camal, allergic oo gudaha ah ayaa ku dhici kara. marka dabcan caloosha in la socodsiiyo aaday muhiim u tahay. marka qufacan ma aha qufac hargab ku xiran, laakiin waa mid iska imaada. waxaa laga yaabaa xataa yani inay hawada meeshay maraysay sanbabadii in ay yani infection yaan dhihina maaragtay allergic ku kacsan yahay. oo masalan cuntooyinkan la cunayo dadkay cunayaan inta badan allergiga laga qaado, laakiin qofka waxaa laga yaabaa inuu dareemin jirkiisa already uu diidan yahay cuntooyinkan warshadaha ka imaanaya. marka waxaa kaloo allergic keeni kara dabcan cuntadii haddii lagu soo beeray chemical, cuntadii la arki jiray dadka jiro uma keeni jirin, laakiin cuntadan cusub maadaama chemical ay ku jirto iyadaa keenayso in ay qofkii ku noqdo maaragtay allergic ku noqdo. marka qufacaas dhan waxaa laga yaabaa inay ka yimaadaan cuntada qofka markaas uu cunay inuu allergic ku yahay jirkiisa. wallahu aclam. isaga wuxuu halkan kusoo darayaa oo aan dhihi karin xanuun, laakiin waa waxyaabo jiro. masalan dandruff waxa la dhaho. dandruffka waxa waaye soomaalida waxay u yaqaanaan qolfaha madaxa ka soo galo qofka, agool ayaa la dhahaa. qoloftaas yani waa marka qof ku badato way kasoo daadanaysaa. hadduu dhar madow qabo xataa dharkii waa ku dadka especially nimanka oo kale shaati madow hadduu qabo qofka waa kusoo daadanaya. yani waa xaalad oo aan socially fiicnayn qofka inuu maaragtay uu ka xishoonayo. marka waxaanayta marka waxay ku yimaadaan isaga hadduu xuleed toxic overload, yani toxinkii jirka ka batay, allergic waxaasayta uu leeyahay, yani bahla caloosha ku jira. laakiin ani waxaan ku dari lahaa yani dadka in badanna aan kala hadlayna xalalna aan u helna alxamdulillahi rabbil caalamiin, shaambada dibadda ka imaanaysa oo dibadda laga keeno. dadka kama warhayaan maadooyinka shaambooyinka ku jiro. annaga dukaankeena warqad dhan ayaan ku dhejinay oo maadooyinka shaambada ku jira, chemicalska shaambada ku jira mid walbo. yani hadda waxaan ka hadlaynaa boqolaalo waay, laakiin waxaan kasoo qaadnay 10ka ugu khatarta badan ayaan ku dhejinay dukaanka English iyadoo ah, inta kalena Soomaaliya loogu micnayo qofka markuu inta meesha taagan yahay wuu akhrisan karaa. marka waxaan saa ugu sameynay in ay dadka inaan ka dhaadhacsiino saabuunaha iyo shaambooyinka dibadda ka yimid waa aad bay khatar uga hayaan waddanka dhan. yani keliya ma aha waxaas qoloftaas, waxaa la arkay tintii oo daadanaysa, yar iyo weyn tintii iga daadanaysa leeyihiin dadka. marka haddaa isku fiirisid waxa keeni karo waxay ka mid tahay yani bahasha saabuunta iyo shaambada noocaan ah oo ay ku jirto chemicalka noocaan ah. mid waxaa jirto marka la dhaho nooc waxaa jiro qalajiya, nooc waxaa jira qalajinaya maqaarka. marka magacyadan way badan yihiin, laakiin ma raba ina waqtiga ugu yaraado magacyada loo isticmaalo way badan yihiin. marka mid ka mid ah ayaa midaas ku jirta shaambooyinka iyo saabuunahan way u badan tahay chemicalka noocan. marka qofka shaambada tinta ku dhaqdo waxay samaysaa way qalajisaa, waxay aad u qalajinaysaa maqaarka meesha tinta kasoo bixaysa. markay tinta qalajiso dabcan waxaa imaanayso in uu meesha tinta si fudud usoo siibanto. maqaarka wuu qalala, micnaheedu waa dead skin.
markuu maqaarkii dhinto oo marka waxaa dhacaysa tintiin inay la soo siibanto marka dad badan tintaan naga daadanaysa dhahan marka ani waxyaabaha aan aad ogala hadlaynay dadka u sheegayna waxaa ka mid ah in ay joojiyaan shaambada dibadda ka imaatay iyo saabuunaha dibadda ka imaaday hadda xataa haddii lagu soo qoro saabuuntan xabasooday ka samaysan tahay oo weliba nooca adag ah oo lagu qubaysto ogow kiimika ma ka maqan kiimikalka wuu ku jiraa xataa haddii xabasooda laga soo sameeyo dabcan waxa adkeeyay saabuunta oo dhagaxa ka dhigo waa nooc min chemicalska la isticmaalo lye ayaa la yidhaahdaa marka noocaas marnaba kama maqnaan karo hadday saabuunta dhagax tahay marka haddii lagu yidhaahdo shaambadan waxaa laga sameeyey ukunaa laga sameeyey waxaa laga sameeyey ukunaa laga sameeyey waxaa laga sameeyey avocado laga sameeyey waxaas waa lagu soo qoraa dabcan sawirkiioo weyn iyo magaciioo weynaa ku qoran laakiin gadaal u gadi dhalada waxaa arkaysaa wax alla wixii chemical ku jiray oo dhan meesha iyadoo far yar ah oo la rabin inaa ka caajistid la rabo inaad akhrinin marka fartaas haddaa akhrisid mid walbo haddaa fiirisid khatar bay bini aadamka u tahay marka aad bay ugu badan yihiin waxaan avocadadii waxaas lagu leeyahayna ama chemical oo carafteedii siinaya ayaa lagu soo daray ama xataa hadday iyadii ku jirto waa 2% ama 1% iyaga waxaa avocadadaas meesha kugu soo qoraa as long ay tahay xataa 1% hadday kaga jirto marka shaambooyinka dibadda ka imaanaya hal iska joojiyo 100% ayaa qof walba oo barnaamijka dhageysta kula talin lahaa dabcan maxaa bedelaya marka waxaa bedelaya waddankeena caadana aan u lahayn geed la yiraahdo gob ayaa waddankeena ka baxa geedkaas gobka ah caleentiisa waxaa dhahaa qasil waddankeena weligiis waa la isticmaali jiray isagaa jirka lagu dhaqan jiray wajiga lagu dhaqan jiray yacni ani hadda xataa waxaan isku dayayaa inaan raadiyo in dharka lagu dhaqi karo taasa hadda experiment noocaasaan rabaa hadda inaan sameeyo insha allah marka waxay leedahay bahalka qasilka wuxuu leeyahay wax alla wixii shaambada ay ku siin lahayd oo dhan kana fiican haddana aan lahayn wax يعني side effect wax ka chemical oo la socdo ma jiro waxaan aragnay qasilka marka tinta lagu dhaqo wallahi iskama dhahay yani waxa wadakaaga ka baxayaan in la faaniyo waxa aragnay yani qofka marka isbuucan ku dhaqatid isbuuca dambe hadaadan dhaqantintaada isbuuc dhan isbuuca dambe weli waxa u malaysaa in yani naacim waxa dareemaysaa in daawo jilcisa la mariyo weli sideedii nadiif u tahay مثلا shaambooyinka iyo saabuunaha saliida ku jiro saliido dadka yani ma qaadi ka warqabaan saliid marka shaambada qofka uu ku dhaqdo 2 bari kadib 3 bari kadib waxa arkaysaa tinta isku dhagdhagan oo saliid ka dareemaysa badan waxaasna waxa waa dhididka iyo marka istaabtaan shaambadii saliid ku jirtay waxay noqonaysaa wax oo isku dhagdhago ay noqonaysaa marka qasilka lagu dhaqana waxa arkay ma sha Allah yani tinta sideedii nadiif u tahay haddana xataa taawashada marka taabanaysid aad bay naacim u tahay marka ilmaha yarkan aad ugu dar xataa hadduu qofku dadka waaweyn ay diidaan inay qaataan yani nidaamka noocan ilmaha ilaahay looga cabsado ilmaha laga joojiyo shaambooyinka indhaha ka galaayo oo jirkoodii dhan awalba chemicalka cuntada noogu jirto caagagee noogu jirto haddana ka hor shaambada iyo saabuunta haday ku jirto iyo kareemyada marka waxaan dhihi lahaa waxyaabaha dibadda laga keeno oo dhan dadka inay iska joojiyaan kulligood badal waa loo heli karaa insha Allah tacaala waxaan jeclaan lahaa barnaamijkan inay dad badan nagala shaqeeyaan si wadanka uu isku filnaansho u gaaro laakiin inta hadda maaragtay aan la gaarin annaga waxaan diyaarinay wax alla wixii aan dadka dhahna iska daaya wixii bedelkooda ahaa alxamdulilah dukaankeena shaqadiisa ugu weyn waa in la helo bedelka waxyaabaha dibadda laga keeno dabcan waxaa laga yaabaa dadka qaarkood xoogaa inay dhibsadaan laanna business haddii qofka wato oo dibadda wax ka keeno dabcan waxaan oo kale xoogaa maaragtay waxaa laga yaabaa inuu siraado businesskaagiya maaragtay uu kaa xayirmayo laakiin haddii qofka uu soo gaaro barnaamijka noocan oo kale markuu ogaado inay waxaan dib ku jiraan dan waxaa loo baahan yahay qofka inuu ilaahay uga cabsado dadka inuu isaga xataa qofkii uu raadiyo alternative wax la dhaho yani bedel inuu raadiyo hadda marka maxaa diidaa qasalka waddankeena inaan ka beec mushtarno oo isagii dadkii la baro oo laga faa'iideysto xataa dibadda hadda dadku way barteen oo muxuu ahayd website hadda qaataa jiro oo maaragtay soo sameeya oo soo baakada soo geliya jiro oo gado marka hadda qasalkii waa natural yani saabuun dabiici ah wallahi xunbada ay leedahay nadaafada ay leedahay wax dib oo naga soo gaarina ma arkin anaga inta isticmaalina marka taas waxa alla wixii saabuun iyo shaambo
يكون قنصة صابون توجي أكون أقل هيد ويكون قن كرتا شامبو تنت أكون أقل هيد ويكون قن كرتا صابون تأجر كودن كوكو بيسنة أنت هل مريك هو سمينا يعني marka dariiqada diyaarintana waxa waaye xogaayo inta kugu filan adiga inaad ku qabaysatid tinta ku dhaqatid kuna qabaysatid in kugu filan adiga qaado ama qaadi bar ama laba qaado biyo waxa ku qasaysaa hal koob ama nus koob biyo ku qasaysaa hal koob biyo ku fiican haduu laba qaado ama meelahaas yahay hal qaado oo saliid macsaran waa ku daraysaa waa isku walaaqaysaa waxay noqonaysaa saabuun caadi ah oo tinta ku dhaqan kartid aku qabaysan kartid wajiga ku dhaqan kartid marka adiga xagga gabdhaha xoogaa waxa laga yaabaa yar yar waxay leedahay inta badan horta marka hore waa la shaqshaqaa haddii xataa ay wax ka soo gaaraan oo yar yar oo ka bixi waayaan tinta mar alla ka qalasho wax yar qof ka jafay tinta wayna dhamaanaysaa way iska dhamaanaysaa laakiin waxaan aragnay wax ka fiican waa weyn yani saabuunta dabiiciga ilaahay nasiib dabcan waa saabuun u baahan adduunka oo dhan inaan ka gadno لأن أدون كيودن هاد ضد بدنا وحكوا براروجين كيميكال كوجر وحيابها سكين كير مركا هدي كريم كأنه قطو وحي وجه يقول كده لها صابونتي شامبدي وحي لأن أنا قبل دلوا وهن الحمد لله ضد بدنا على قبصدي مركا ودن كان آد وغني هاي الحمد لله تاس مركا أقرب حين حق الداندروف كأما أقول كحلي هذا وحكى له جرو وحكى له جرو depression ومثلا حالة نفسية عارف بقولها أنا سومالي ما قرنا depression وحلوها يعني وحالة وقف كمالك ودريم ويعني دريم أي أدونك وح مالك هاد وين أو كفر حسين إني أقولين أما وح كفر حسين إنه مالك تيجي عن تكوهين يعني قف أو دريم أي يعني waxa uu nool yahay wax weyn inay ahayn midalan oo ku qanacsaneen waxba uu xaqan inay ma jiro wuxuu ku faraxsan yahay oo ka shaqeynaayo ma jiro yani qofkii xoogaa niyadiisa soo xumaatay in uu maaragtay wax u sameeyo noloshiisa dabcan depression ka waxyaabo meel badan oo ka iman kara depression iska yimid oo qof hal mar depression noqday mar way dhacdaa laakiin inta badan waxa lagu xiraa yani hadda isaga buuglin kuma sheegin لكن أنا وحنا كحرة depression أردن إنه قف يعني هل مرة أركز قف كيو دور معمود أما دور بلوح حتى واحد أكتر قف قول كيس إنه كسر بحين سريرتي سكسر كعين وح motivation وح لي يعني وح كو يعني ودريمة إنه وح قبص وح أردن مجران قف كده وحس كنا قنا قف قاد معركتي نلشي بقى أن يعني كفر حسنين مركا وحكي ماذا أنا مسنها وسجها تبوك وكوشين ويعني كيميكالك maanta oo dhan qofka uu cunayo cuntadii ugu jirto saabunihii ugu jirto caagagii wax ku cunay ugu jirto waxaas oo dhan ka qof ka bataan waxa imaanaysa xaaladii maskaxda waxba iska bedelaya dad badan waxay yiraahdaan qofkan jinni oo qaba waa la sixray wixii dhan waxa laga soo reebay xanuunadii maskaxda ku dhacday oo dhan waxa laga soo reebay yani in uu qofku jinni qabo أما سحر وكذا يعني سبحان الله وحاس هدي جيران وحأمرنا آد لقبت بدي إلا لجارسي جني إنه قدر كهر مريكرو سحر كإنه قدر كهر مريكرو هاورو حالسي الهين لبضب يعني آد لقبت بدي مركا أنا حاسلاي هاي حالة ذهان ذات كمان جني يقول كل شيء لا يحكي معها وحي أبدا هاي الله أعلم يعني حتى هدو جيني أساس وجرو يعني معلومات نوعاسة وحي وحلو بقى إن لفهمه قف كان حتى وحلقيها بقى كلية هدي نفقدي سيرتها مسكح دويدو نفقدي وإبه هناك هدي مسكح دويدو أما أوكي رادو وحيمان كتوقف كان إنه نقضب قف ماركتي depression كانوا كالأوكي مارو مسكح دويدو إبه هناك بازين أي كوش قيسو بازين كي كوش قاين هل يعني بازين كبوس كي سوا انتدي نفقد هذا مسكحة مركز نفقة قاري وباهنتها نفقد مسكحة وقفي عن هلي كرتنا وحواي انتدي بدأ دت كان انتدي بدأ وما بدأ هلي بقى لو عنا وآسد كيس بدني هاي طبعا مركز انتدي بدأ وحكي انتا مسكحة ويد جساء ويقبو جساء إنه قفك كلونك وحكا عنه حتى كلونك وحليه سبق جساء بقى دونك لو رجع عليه هاي أو ميجا 3 اللي هذا هذا مسكحة وقفي عينه
مثلا ma nihin dadka waxyaabaha nutska lowska iyo hadda bahalkan la yiraahdo waxaa la yiraahdaa bocorka weyn oo jaalaha ah lafihiisa waa la cunaa waa aad bay caafimaad u leeyihiin waa la dubaa waa la cunaa anaga marka carabi waxaa dhahaa mukasaraad ma nihin dad oo xagga maaragtay waxyaabaha lowska oo kale aad u cuna ma nihin waxyaabaha nutska loo yaqaano englishka ama carabiga loo yaqaano mukasaraad waa waxyaabaha maskaxda aadka ugu fiican annagana cuntooyinkeena maba ku jiraan lowskaas keliya hadda maaragtay naga soo gaaro marka waxyaabahaas in qofka badsadaa loo baahan yahay in nutritionka qofka nafaqada laga dhiso intaan la dhihin qofka jinni iyo sixda haayo bal horta cuntada ha laga dhiso hala siiyo waxyaabahaas u fiican cuntada badda ha loo badiyo maaragtay qofkii waxaa loo baahan yahay yacni ilaahay in la xasuusiyo ducooyin waxaas laakiin inta aanan yacni waxyaabaha aan aadka maaragtay mawduuc ma aqaan mawduuc u baahan waa keligiis in laga hadlo laakiin mawduucan jinniga aad buu waddanka ugu batay waxaan u maleynayaa xoogaa maaragtay in uu meelaha qaarkood dadka dhibaato weyn ay kasoo gaarto especially qof maaragtay meel inta lagu soo xiray la dilaayo maanta dhan la leeyahay qofkii jirkiisa la dilaayo waxaa maaragtay la dilaayo jinniga marka taas ani waxaan jeclaan lahaa dadka inay aad yacni uhubsadaan qofka xanuunka uu soo gaarayo waa qofka jirkiisii waaye xataa haddii uu la yiraahdo jinni ay ku dhacda marka ugu dambeyso calaamaadka qofku waxaa waa dhaawaci wuu ku yaalaa mar walba marka qofka inta aanan dhibaato la gaarsiin qof asagaba xanuunsanaa haddii dil loogu sii daro yacni waa waxyaabaha aan u malaynayo yacni xoogaa sida khaladka ah in loo fahmo ma dhahayo yacni aniga dadka waxaan ka shaqeeya oo dhan waa wada beenalayaal iyo waxaaside ma dhahayo laakiin waxaan rabaa arrinkan in la bilaabo in mar labaad laga fikiro jinniga iyo sixirka oo wax alla wixii dhaqaaqay oo dhan oo xanuuno yimid haddii jinni iyo sixir laga dhigay waa mushkilo jirto marka heer la gaarsiiyey sixirkii in laga dhigay inuu qadarka ka hormari karo marka waa waxyaaba u baahan in gadaal loo fiiriyo ilaahay caafimaad hana siiyo laakiin inta badan waxaa la arkay qofka madaxa markuu ka xanuunsado ama nafaqada ku yar ama toxinkia jirka ka batay iyo chemicalkii waxyaabahaas oo dhan u baahan in la fiiriyo inta aan la dhihin qofkan hala dilo oo jinni ha laga saaro marka qofka haddii qur-aan lagu akhrinayo qur-aanka waa wax fiican alxamdulilah ruqyaa jirta laakiin ma aha in qofkii maaragtay dil loo geysto asagoo awalba xanuunsanaa oo markaa dhibaato kale lasii gaarsiiyo allahu aclam taas waa xagga depressionka waxaa kaloo jirto diabetes yani sokorta inay badatay oo waayadan ay sokortii badatay cudurka sokorta la yiraahdo dabcan wuxuu ka imaan karaa oo xagga caadaga aad uga hadlay marka caadaga ka sheekeynaya iyo bacyaasha markaan aan cashar ka bixinaya waa diabetiga masalan caadaga wax la isticmaalo caadaga iyo bacyaasha la isticmaalo waxaa ku jiro waxa la dhaho bisphenol A wax la yiraahdo bisphenol A chemical noocaasa ku jiro oo keena in uu qofka maaragtay interruption ku sameeyo hormoonka iyo qanjirada qofka jirkiisa ku jira marka waxaan xameetida la dhaho oo pancreaska lagu dhaho englishka waa iyadana waxaa ku jirto qayb kamid ah ku jirto hormoonka sameeya marka waxaa la dhahay marka haddii uu waxaan jirkiisa qofka ka bato chemicalka noocan BPA ayaa la yiraahdaa hadduu ka bato interruption wuxuu ku sameeyaa hormoonka jirka oo dhan marka dabcan waxaa kamid ah qaybta sokorta maamusha oo xameetida ah oo sokorta waa meesha lagu regulate gareeyo haddii marka ay xanuunsan tahay ama interruption galo meeshaas waxaa ka imaanaysa qofka inay sokor ay ku dhacdo marka iyo waxyaabihii kale oo masalan sweetenerka sokorta aan hadda diabetica la siiyo sokorta artificialka oo aan ahayn dabiiciga ahayn wuu ka yimaadaa burka cad wuu ka yimaadaa waa transfat saliida cad wuu ka imaadaa waxyaabahaas oo dhan daawada inta badan dadka iska cunaan oo badan oo farmashiyaha laga soo gato way ka yimaadaan marka diabetiga marka isaga laftiisa waa mawduuc dhan oo mar dhan laga hadli karo maadaama aad u badan yahay laakiin waa chemicalkii oo jirka ku batay ayaa aniga aan kusoo koobaya allahu aclam waxaa kaloo jiro xanuunkan kale uu ka hadlay shubanka hal mar shubanka soo boodaya shubankan soo booda waxyaaba badan oo ka imaan karaa
مثلا بهلad caloosh haday ku bataan oo kale isaga mar walba aad wuxuu ugu soo celiyaa daawooyinka farmashiyaha in ay waxaan ka imaan karaan laana daawooyinka farmashiyaha mushkilada ugu weyn ee dadka u baahan yihiin inay ku baraarugaan waa daawo marka ugu horeysa qofkii soo sameeyay xataa adiga kuma yaqaano da'daada kuma yaqaano dherarkaaga ma yaqaano miisaankaaga ma yaqaano waxa cuntid ma yaqaano environment meesha ku nooshahay ma yaqaano marka haddana daawadii uu ku keenay wuxuu ku leeyahay 3 jeer qaado 4 jeer qaado yani wixii waxa waaye qofkii isagoo maaragtay laga warqabin ayaa daawadii la leeyahay qaado marka wixiina waxa waaye waxa la socda haddana side effects badan la socda marka daawooyinka qaarkood waxay u baahan yihiin yani in loo fiiriyo dhakhaatiirta inay u fiiriyaan qofkan daawada uu qaadanayo horta dhibka ka soo gaarayo iyo faa'iidada uu ka helayo kee weyn marka labaadna in qofka la fiiriyo da'diisi dad badan daawada iska qaadanaya xataa yani da'di asagoo maaragtay khatar ku tahay da'daasita ama qofkii xajmigiisa miisaankiisa waxa soo dhan la fiiriyaa marka waxyaabo badan oo ka iman kara shubanka saas oo kale yani qofka cuntooyinka maaragtay dadka cuntada bakteeriyada masalan bakteeriya badan iyo germs badan haday jiraan aniga waxyaabaha aan aad u arkay oo aad aan u jeclaa dad badan inaan kala hadlo waxa kamida waxyaabahan germska iyo bakteeriyada dhaho dadka yani way fududeystaan yani dad badan ayaa fududeystay لأنه bakteeriyada iyo waxyaabaha keena ay kamid tahay shubankaas soo boodka ah haddana hadii aan la daaweynin infections hadda isu bedeli karto marka waxyaabaha aan rabo inaan ku soo xiro mawduucan shubanka waxa waaye suuqyada wadanka Soomaaliya oo dhan waan la yaabay wallahi qofkii rabaa igu nacay waa wax jiro wadankii waa wasaqaysan suuq waa wasaqaysan wasakh la ilaha illa allah والله dhulka waxa yaalo cuntadii la cunaayay dhulka ay taalo iyo meesha lagu gadaayo wallahi ma aqaan hal qof laba qof wixii maaragtay ka badbaaday dadka wax gadaaya laakiin inta badan dhulka la fadhiya dhulkii waa wasaqaysan yahay meelaha qaarkood waxa arkaysaa maaragtay especially yani marab ina magaalooyinka ka hadlo waxa waayo yani waxa laga yaabaa inay sheekada ka dheeraato laakiin u fiirsada magaalooyinka waliba waa weyn markuu roobka dhulka fiiriyo sidoo yahay xasbunallahu ni'mal wakiil musqulihi soo baxay meelihii yaanyada lagu gadaay iyo waxay ag maraysaa qudaartii biyo la cabaya lagu gadaaya waxa lagu gadaaya yani waxyaabo la cunaa lagu gadaaya xataa waxyaabo la soo dudubo la soo shiilay dad gadaay meesha way fadhiyaan yani u fiirso meeqa culays jirka qaadi kara chemicalka cuntada ka yimid chemicalka caagga ka yimid chemicalka biyaha ka yimid chemicalki hawada ka yimid waxaas oo dhan marka la isku soo daro haddana waxa sugay cuntadan xataa cuntadii haday tahay cuntadii fiicneed qudaartii fiicneed wadanka ka soo go'day meel wasakh lagu hayo marka wasakhdan dadka maxay hilmaameen xanuunada ugu waaweyn in laga qaado wallahi illa yani aan yaabay waxaan dhahay xanuunkan tiifowga la yiraahdo muxuu dadku ugu badan yahay maxaa Soomaali oo dhan yani labadii qof oo xanuun ka sheegato mid baa tiifow qaba واي marka si fiican u baaray horta macnaha tiifowga dadka ma fahansanyihiin tiifowga macnihiisu waxa wax saxarada ka yimid waa wasakh saxarada ka timid ayaa qofkii calooshiisa gashay marka isweydiiyay hal jir hal maxay ku dhici kartaa qof dhan calooshiisa wixii kala saxaro haddana waxaan dhahay markaan suuqa tagay waxaan dhahay maxaa loola yaabay suuqii hadduu saan yahay cuntadii wixii soo galay ayaa maaragtay qofkan calooshiisa u galay marka suuqyada aad bay u wasaqaysan yihiin dadka ha iska ilaaliyaan cuntada suuqa markay ka soo gataan horta dadka wax gadaaya ilaahay uga cabsadaan dadka cuntada ka gadaayaan oo meelo nadiif waxa ku gadaan xataa miis yar kor u qaadan oo miiskii la nadiifiyay ilaa qofkii meesha caga ka soo galaysa ma fiicno dadka inuu xanuuno u keeno cuntada la gadaayo waa cunto nadiif ah especially khudaarta wadankeena markay tahay laakiin nadaafadeeda in la ilaaliyo u baahan tahay meel wasakh oo wallahi dadka biyaha ag yaalo iyo hadee waxaan dhahay maxaa ku dhacay yani feelingki dareenkii qofka ma ka tagay oo in ay waxaan yihiin wasakh ma ka tagay laana biyaha way urayaan daqsiye iyo wax ba ku dagay waxaan arkay hilibka la gadaayo suuqa
daqsiga wuxuu u kor saaran yahay waxaa is leedahay maro lagu daboolay camal يعني حسبنا الله ونعم الوكيل وميلها جيرمسك iyo waxaan tiifooga la yiraahdo iyo bakteeriyada ay ka imaanayaan dadka maxaa loo joogaa maaragtay isha loogu badan yahay klinikada dhaqaatiirta iyo isbitaalada iyo daawooyinkan dhan waa xanuuno wax kale meel kalena qaarkood badan inta badan waxa laga yaabaa inay ka yimaadaan especially bakteeriyada iyo waxaan waa suuqyada fiiriya suuqyada yani suuqa cuntada marka laga soo gado waxaa la rabaa xataa yani haddii la joojin waayo dadka suuqyada jooga haddii cuntada si nadiif u maaragtay u gadaynin haddaba waxaa fiican dadka qof walba gurigiisa malmal ha dhigto malmalkaas biyo badan ha ku shubo malmalkaas biyihiisa ha iskaga dhaqo khudaarta iyo waxa inta aan la karinin marka waxaa ka dhimanaya jeermiska intiisa badneeda ka dhimanaysa insha allah marka yani in lagu dadaalo qofka calooshiisa waxa galaya inay tahay wax aan jeermis lahayn oo nadiif ah marka taas waxa waaye xagga maaragtay nadaafadda oo aan ku soo xiraayo maaragtay xagga waxa la yiraahdo shubanka marka shuban ilmo iskala soo boodayo dabcan ilmihii waxay cuneen hala fiiriyo maxaa ku jira jikada waxaa la rabaa inay mar walba nadiif ahaato alaabta inay nadiif ahaato inay kala soocan yihiin hilibka iyo hilibka markuu qoyan yahay oo la karinin in laga ilaaliyo cuntooyinka si toos loo cuno inay kala fog yihiin يعني وسخ الآد إنه إلى لكن إن شاء الله أنت أنا خصوصا جبينا يا قيتان إن شاء الله سيسمعني صادق إلى ذلك السلام عليكم ورحمة الله.